هذا ما اسمه على معناها أبشر واي هاي مقال كان إسقى ما ركتي يحبوا ولا له صدوه هذا هو إلى أنا أبو ريع عب ملأ ما شاء الله أو مع عروسة باطة أو عروسة بقى لكن كي عروس كأهمي ورسك صباح إسكا صباح ما يدي الغفقة دو والله بلا طلع ولا ما سنوي غفقة دو وحشي لا دي بدنا عمل بقول كل شيء waayo hay waa maalin kale oo la qurxinayo dad badankiin aad taqaanaan isla markaasna baraha bulshadeeda kala hadla waxa ku jira akshay oo dadka ka waaniya in la qaloocan baraha bulshadana caanka ah iyo liicaato oo YouTube ka bariiseeya qaybo kale oo social media-hana aad looga yaqaano YouTuber ka yimid wadankan aan joogno dibadiisa sigaar Malaysia iyo akshay sida daraadeed waxaan rabaa maanta waxaan joognaa timajare ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah isla markaasna Soomaali ay ka shaqeyso micnaha la isfahmi karo liicaato raba inaan weydiiyo sida u timi Turkiga wali timajare noocan oo kala ما شاء الله وتمجريه ده يسألون كي وهري أن أركو أن كو أرك تركيا قارهان أنكرا ما شاء الله وحلايا هيدا ميرضا يو قبلها الصوماليات با كسوغان أنكرا هل كان وميلادو قروح بدن وميل ولاليهن أي شوغان استفادوا فهميسان ومر وقت والبا أنا هل كان أجوغنا ما كسوغن هنا وميل صديقنا يعني ما ضنوا waxaa idin leeyahay de maamulka Afro Cofer dhamaantiin waxaan way mahadsantihiin de halkan qaybna yaa lagu ekaanin qayb badan hala furo tinto lagu jaraysa ognahay qisas la yaab la ka qabsatay majarista maadaama wadankaaga ka soo tagtay wadan kale aad timi aadiyan haye bal move ma ku maya qisadaas waa wax yar oo qosol leeyahay haye subaxan dad la balansanaa oo aniga keligii aan joogo hotelka ahayd marka timajaro ii dhow waxaan galay oo Turkish ay leeyihiin ajaanibta dibaas fahmeyna brother kadib waxa ka dhacday sidii ii dhaaf maanta orana waxaan ku hayaa tamam tamam aan ku hayaa ma baan oo lagad waxa halkan ku sugan dhalinyaro Soomaaliyeed oo sad adiga jeceshahay ama u dalbato wax ku sameeyna sidoo kale gabdho kale waxa jooga halkan aad u qurux badan make-up-ka ariga ku saaraa ha ku sheegin aad iyo aad hadda qaybta waxa ku jirnaa oo dumarka okay intaad ahayd malaga soo qurxiyay aad iyo aad kaan iska argo wiiliro shantii jira balsande waa sidana loo soo kala ninkan waana xaalad ku qanacsantahay sida lagu jaray aad baan ugu qanacsanahay waayahay dhankiisa kama dhaco akshay aan la jooga isagana shaqa ku socota akshay soo dhawow dadka la hadashaa way ku yaqaanaan shaqada lagu hayo anaa u jeeda sida noo qancinaysay adiguna bal u sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما والإسلامي الصوماليين أنتنا حنوصل إلى حنوك قاد أنتنا عفمات خطر إلى عفمات كوزجان مدة الضوء تبصر كرو مالنت يقول رسالة بالبير الصومالي ما أو شيء قاب كأورو مرة وعلي يرك حتى فيديو حنقول هاي مرة وعلي هاي وعلي له بركو حنا برنامج كمان برنامج أوب علينا هدي عن الصومالينا أفرو باربرو حنا يا هوشي نمشي كسر هال في عنا يسار عبد الله sidoo kale isaguna dadka ayuu ku qoslaysiyaa wuxuuna ku jiraa youtuberada waaweyn ee maanta timajarahan Soomaalidu leedahay lagu qurxinayo qodiistu wuxuu doortay in timajarahan afar loogu shaqeeyo Cabdullaahi bal adoo marka koobaad tartan naga qoslaysiin si caadi noola hadal kaamirada la hadalo hay waxaad ku aragtay timajarahan aad ma santahay Ali Aadan Muumin ugu yaraan muddo aan ku suganahay dalka Turkiga 4 sano waa markii ugu horeysay aan imaado baabiyeer Soomaali run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay kulli si qurux badan la igu jaray anoo waji dheera imaado meesha laakiinse hadda wajigayga aad u qurxoon yahay micnaha ninkan inuu fan yahay asaas ka jafooyaba halkaas ka dareemi kartaa waayahay timajarahan afar si wada jira waxa leenahay lagu soo dhawaado wuxuuna ku yaalaa aaga Kislay fafaaninta ka badan si heli doontaan iyo qaybo kale lagu soo kordhiyay Cabdullaahi adiguna ku soo dhawaado timajarahan mar kale maadaama markaas ii horeysay aan halkaan aan imi aad ma sha taala waayahay dadka la qurxinayo ee rag iyo dumarka isugu jira waxa kamid ah Najo Caraale oo dadka YouTube-ka ka bariiseeya caanka ka ah isla markaasna maanta timajarahan iyo qaybtiisa kale dumarka afro lagu qurxinayo sida daraadeed Najo Caraale soo dhawow dadka ku daawanaya bal wili gabar Soomaaliyeed sidan gacanta inta u qabatay inta qurbaha joogtay ku shaqeysay runtii waa hore ay ugu dambeysay dhowr 10 sano ka hor baa cilaan ay ugu dambeysay maanta waa tan hadda waa la qurxiyay nin baa isku maleyn jiray hadda maanta dumar baa ahay ma sha Allah Najo maanta waa dumar waaw Najo waa dumar adeeg lagu qabanayo ka waran runtii adeeg hufan weeyaan ma sha Allah gabadha
hadda hawsha gacanta ku haysa dadkii yani mar hore ay ugu dambeysay cilaasan loo saaray wadankii camal inaa jooga isku haystaa waa gabar aad u hufan waad u jeedaan gacanta ay saartay yani cilaanka de Norway lagu ma saaro runta daan ka hadlo hadaan wax xaqireenin Norway wallahi lagu ma saaro Turkiga ka heli kartaan ما شاء الله أو معروسات باته أو عروسات بقى لكن كي عروس كأهمي ورئيس صباح اسكا صباح كم تبي إيمان دونا إن هراء اللي كوش شيء ده كلا دعينا جوجا مركنا ونصراء بتدون وعنت معاني لوجي قاني إعلان معان يتنتوسي معان لوجها كجيو أي لا كل مدونتا سودو هالكين جوجنا ودونا هاي إنه حاجوجنا أفرو كونفير وكيا لو أنكرة وكفرح سنة إن ما تصوب وخذي سودوين قروح بدن إنه صميين إن هذا وجهه وحقبت كودي إيش قد إيقابنايان وضن أنا رأي معلومة قرب جوجا هيد بلهان سنضان دياسبرا لا يصير دياسبرا أوكي ولي الصومالي كوش قيس مارت وحن كهلا يا كفاركم كل هذا ما والله ولي ساينون وصومالي كانوا يهوري ما هذا هذه جود سيدا ورقتها هذا وجهه ما شاء الله حقبت كودي علان قروح بدن مرنا أنت بدن مركي أو قرب لي ما هذا أو أم ودن كلا صوت علامة حامر البودن كنا كويس لكن أنت حاومان علانك صومالي اللي جمر الجرو كله إن سايلون كيو تمي قبلي لوف ونينا ميك أب قروح بدن درك أروسيد وكل لايك وحدري ما صومالي عملنا جو أنت نحتاجنا واي هاي ده تكون شقينا يا صومالية ما أجنبية صومالي ما شاء الله قبل الصومالية قبل الصومالي واي هاي يدو بيلو ما شقينا يدو قرحنا مركل أركض حتى قرحنا thank you وحاليا ما ميلا الأركن اللي يقرحيه كبتها مضحة اوكي سير قرصنيدا نلاشك درادي مدخا لو قرخيه كسو قاد iyadoo qurxan taariikh laga thank you way hay muuqaalkan isaga ma aragtay wuxuu yahabo walaalo soo dhawow هذا ilaahna wada abuuray ceeb male marka maanta Afrika farna joogno dadku waxay uga dhigan tahay bal hay iyo adiga ani shakhsiyaanteeda horta bismillaah magacaygu waa Cabdirashiid Khaliif wallahi waxay iga dhigan tahay Ankara haday imaadid qofka imaanday Afro Cofer waxa la Ankara ma joogto because of waa coferka ugu shidan ee Soomaalida gabdhaha wiilasha labadaba way leeyihiin laba qayb ay leeyihiin laba qayb ay leeyihiin marka sharaf ay tahay inaa maanta hortaagan ama studio-da wax ku duubay waayahay Afro waxay leedahay qaybta ma lagu jaro oo aragteen inaan leecato akshay iyo ninka weyn oo fanniga looga haray iyo maaragtay ku soo duubnay sadraadeed tinta lagu jaro adigi anu wali jaro anu qor xir yar anu qor xir yar iska gal qor xir yar ma ka haray kadib waayahay ma wax leeyahay koofid hal si wax bay leeyihiin marka ani ma ku darsan karo adiga waxay dhici kara ma oga aniga ay dhimala sax way sii ogu hagaag adi marka dhaatinta ma lagu jaray inta taabato marka karta inta lagu habay ha ani garka bisa liya habay wabillahi tawfiq waxa waay wuxuu ku jirtaa adi system kale ku jirtaa waayahay nasro xaashi nuure waa wariye aan hal meel ka soo wada shaqeynay waxay joogtaa hadda Ankara waxaana joognaa Afro Cofer haye wajigayga ka garo sida lagu galay waaw maanta waxa soo galay anoo nasarkinta taqaani ah hadana waa ii jeedin si qurux badan aan galay si qurux badan la igu adeegay ali igu adeego oo ii galay ba wajigayga xataa loo sameeyay haye marka waxa waay Afro Beauty Salon oo ku yaala Ankara waa meeshii ugu horeysay imaado oo wajigayga make up looga mariyay hal gacan oo meeqaba igu maqan mid laba ma ka soo kabsan karo ma ba cunaysan noqonay macna miisaanka isbedelay waayahay Afro iyo sida lagu adeegay ma Soomaaliya ku adeegtay mise ajaanib maadaama position Soomaaliyeed wallahi maadaama meeshan insaan filay ka shaqeeyaan ajnabi iyo Soomaaliba laakiin ani wali adeeg gabar Soomaaliyeed oo aad si qurux badan igu adeegtay oo igu raaxeynaysa markay shaqadii qabanaysa ay adeegtay waan ku faraxsanahay sidoo kale dad ahlu sharaf ah meeshan iskale Mr Hamza iyo sidoo kale Qamar oo soo dhaweyntooda aan laga sheekeyn karin aysan halkan ka bilaaban aad weyn dad muqdisho ka wada imaanay halkaan isku wada aragna waay oo shaqo wacan halkaan hadan nooga bilaabeen waayahay nasr way mahadsan tahay koofeerka iyo timajarka qaybtiisa kale waxay ku yaalaan isla hal xarun aaga Kislay adaxta timajaraha laga soo habeeyay halkaan ka diiwaan gashanay hadayt caliga ka soo jira aheed waa fahansan tahay halkaan ka diiwaan gashanahay hal wada yimaada leenahay ku soo wada yaaca sida loo wada joogo hal wada yimaado waa ayaga abdir ilaahay ugu soo yaaca meel oo macaamiil badan oo aad ka mid tahay joogaanba malaga harayo hagaag thank you halkan looma kala harin sida hore kugu sheegay waa la wada joogaa yaana la jooga nadar caraale
hagaag hadda aniga reer Ankaraan ahaa ahey aad iyo aad soo dhow weli markaan ka hor halkaa ma timi maya ma imaan markii u horeysay aan imaaday waaye aadan uga helay shaqada lii qabanayo waa adagtan cilaan kas qurux badan aan limarnaaya hadda ku soo dhawaada hadee Afro Beauty Salon dhankii wiilasha dhankii dumarka wax walba waa laga qabtirayaa koofeerka waxaan sameynay qaybta ragga walibana sanadkii markuu ahaa 2020kii markaan is arkaynay xafladda furitaanka bishii labaad ay ahayd inaan qaybta dumarka furno waxaan ugu keentay baahi oo anagu mar walba waxaan ka duulnaa inaan wax iska furno kama duulno waxaan ka duulnaa baahida waxaan ka turjumaynaa ummadda Ankara ku nool shacabka Turkiga ku nool qaar ahaan Ankara inaan u keeno mar walba wax quality leh oo qurux badan markay arkeen dad badan gabdho badan aan ugu meeshaan hoolkan oo banaan ma qayb dumar ku soo kordhisaan ma qayb ka dumar ku soo kordhisaan darteeda baahidaas keentay kadibna qaybtan baahida quruxda badan aan gabdhaha u diyaarinay maadaama iyagu mar walba ay ka kharash badan yihiin ragga meel ka kharash badan oo ka qurux badan u diyaarinay qaybta ragga taas keentay inaan qayb dumarka furno qaybta raggana waa ogeyd sanadka horse ahayd haddana dayactiraa ku sameynay because Soomaalidu badan waxay aaminsan businesska inaa wax yar la geliyo wax yar laga soo baxo instead ani aan aaminsanahay waxa gelisid wax qurux badan oo quality la imo markaas wax fiican ay imanayaan mar walba try to best ha saas aaminsanahay xamsi wuu mahadsan yahay maamulka Afro ayuu qayb ka yahay sida daraadeedna wuxuu warbixin naga siinayay bal dib casriyeynta si guud hawsha insha Allah guula u rajeynina aad u mahadsantihiin soo dhawaada mar labaad ma saddexaad thank you waa mahadsantihiin dhammaantiin asxaabta meeshaan nala joogta waxaan idin leeyahay maadaama aan naga qayb qaadateen maalinteena quruxda badan leh noona qurxiseen ilaahay sidaas idin qurxiyo waana ku mahadsantihiin waana idin ku soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad meesha waa meeshiini dadweynaha reer Ankara iyo nawaaxigeedaba waxa kaloo la ogeysiinayaa in maanta xariga laga jaray Afro Coiffure Salon iskuna soo aad bandowgii oo la qaaday iyo xarig jarkii Afro Coiffure waxa leenahay ku soo dhawaada rag iyo dumarba qaybta dumarka wax walbo shaqooyina dharka haday tahay haday cilaankii tahay haday jir dhaqidii tahay haday karaatiin tahay ayu wax walbo oo gabar Soomaaliyeed loo qabto ama gabar ajnabi nooc rabtaba ha ahaato waxa jiro timo dabitaan iyagana sidoo kale gabdha ajaaniba sameeyaan si qurux badan lagu qancin doono gabdho badan oo shaqaalaha si qurux badan loo soo habeeyay loona diyaariyay loogana fakaray shaqadoodan ay aad u wanaagsan tahay ana rajaynayo inaa ku qanci doontaan hadii Ilaahay idmo insha Allah Afro Coiffure waxay ku taalaa Kizalay santarka Ankara ku taalaa Kizalay santarka magaalada agagaarka maqaayadaha Soomaalida gaar ahaan saab korkeeda telefoon lambaradena iyo addresskana waxa kala socon doontaan shaashada hadii ay idmo aad u mahadsantahay